السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa TV-gani aan doonayna barnaamij shiro kooban oo ku saabsan doodii shalay iyo dacartii ka dhalatay bal haddaynu kaga hadalno waxaana barnaamijka idila socodsiinaya anigoo ah Cabsaaq Axmed Jaamac daawasho wanaagsan intii shalay daafaha caalamka kala socotay dood ballaaran ayaa lagu qabtay aqalka baarlamaanka Ingiriiska oo laga hadlayay qadiyada Somaliland iyo sida Ingiriisku xilligan ugu baahan yahay inuu la jaan qaado isbedelada ka imanaya Geeska Afrika iyo xuduudda China ee isku ballaarinaysa wadamada Afrika. Xilligana dowladda Ingiriisku waxay u aragtaa haddaanay line-ka qabsan inay hadhow marti ku noqon doonto Geeska Afrika. Waana arrinta ugu weyn ee soo dedejisay xilligan in dowladda Ingiriisku ay tiraahdo Somaliland mar baan wax isku ahaan jirnay. xildhibaankii doodan waday iyo xildhibaanadii kaleba in badan waxay ka dhawaajeen in Somaliland 30 sanadood iyadu doonaysay un saaxiibtinimada Ingiriiska laakiin aanay sii socon doonin haddii aanu dowladda Ingiriisku aanay ka faa'iideysan. doodaas waxay dhaliil badan u soo jeedisay in dowladda Soomaaliya xataa tallaalkii COVID-19ka isagoo dhicitaankiisii waqti yar ka harsan tahay inay Somaliland u sii deysay. waxaa cajiib ahayd gabadh ka mid ahaa MPyadii doodan waday oo iyaduna sheegtay Bangladesh iyo Pakistan in aan la odhan Pakistan go'aanka ha gaadh waana arrin caqligu diidayo laakiin xilligan doodaasi waxay dhalisay dacar fara badan dowladda farmaajo iyo dadka taageersanna waxay ku keentay jahwareer siyaasadeed maadaama xilligan seelaanka siyaasadda ka sii dhacayaan aanay meelina uga bannaanayn doodaha qaar inkastay lumiyeen saaxiibtinimo ay Somaliland la samayn lahaayeen laakiin madaxweyne farmaajo iyo ciidamadiisu Somaliland waxay ku sii sagootiyeen cimri tegay iyo ceeb waana sababta xilligan soo dedejisay in madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland iyo wafdi ballaaran uu hogaaminaya ay Itoobiya booqdaan Abiy Ahmedna aanu ahayn saaxiibkii shalay uu yahay saaxiib cusub oo siyaasadda cusub ee geeska ka socota soo dhaweyn doona isaga laftiisuna xilligan u baahan cid salaan ka gaarsiisa Mareykanka iyo isbedelada geeska ka socda. madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland wuxuu tegi doonaa wadanka Mareykanka halkaas oo isbedel kale uu ka iman doono. madaxweynaha xilligiisu dhamaaday Mr. Farmaajo iyo mucaaradkiisu xilligan waxay u egyihiin qaar isu tirinaya maalmaha iyo waqtiyada ay geli doonaan ama ku kala wareegi doonaan madaxtooyada Soomaaliya halka jamhuuriyadda Somaliland ay u diyaar garoobayso dalkii koowaad ee safaarad ka furan lahaa wadamada reer galbeedka ee soo dhaweyn lahaayeen inkastoo madaxweyne Farmaajo uu xiriir la sameyn lahaa Somaliland uu ku sii sagootiyay cadaawad iyo ciilqab laakiin mucaaradka Soomaaliya isaga laftiisu wadada Farmaajo ayuu qaadi doonaa markuu soo karo kursiga oo imikoon buu Somaliland hadal hayaa mise wuxuu doonayaa qeyl uu ugu abtiriyo siyaasadda saameynta leh ee xilligan geeska ka socota. Somaliland xilligan waxay u sacbatumaysaa saaxiibo cusub ay yeelan doonto. waanigoo ah Cabsaaq Axmed Jaamac oo idinkaga tegaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. meel kasta joogtaan iyo xilli kasta idin tahayba habeen wanaagsan. وأريد لحنكي أبو حسن بحلاب صالح ميسيجي فريني يعطكي كوحدة حديقة حديسكا dadyo gabigiin gacmaha
isqabsada dadyaw gabigiin gacmaha isqabsada markaan calankaara guud ka sugnee kunidaysu taagnayeen kuniba taladi garanoo kuushii hantine dadyaw gabigiin gacmaha isqabsada